ayaa dadku waxa ay ku sheegeen in magaalada laba dhinac ay u kala qaybisay. ciidamada dowladda ee ku sugan isgoysyada magaalada ayaa si joogto ah u xira wadooyinka ay fariisimada ciidan ay ku leeyihiin ugu yaraan maalintii 2 jeer, waxayna taasi dadka magaalada ku nool ay ku sheegayaan in ay sababtay magaalada in laba dhinac ay kala noqoto. waxa ay dadku sheegayaan wadada wadnaha oo ah wado muhiim ah islamarkaana horey loo xiray jidcadyaashii ka soo bixi jiray oo dhanka wadada Maka al-Mukarrama soo aadi jiray. dhagxaan waaweyn lagu xiray, haddana si joogto ah ciidanka ay u xidhaan isgoosyada gaadiidka lagu baaro. saake ayaa mar kale ciidamadu ay xidheen wadada, waxaana taasi ay keentay in dadka ka soo kaca dhanka wadada wadnaha wixii ka xageeya aanay u soo gudbi karin dhanka wadada Maka al-Mukarrama kuwooda gaadiidka iyo mootooyinka bajaajta wata, halka kuwa ka soo toosa wadada wadnaha ay wadada Maka al-Mukarrama nawaaxigeeda suuragal ay u tahay inay u gudbaan dhanka wadada wadnaha. dadka falanqeeya arrimaha amniga ayaa ku sheegaya sababta xirnaanshaha wadooyinka magaalada Muqdisho ee joogtada loogu sameeyay inaysan isbeddel ku keeni karin ammaanka magaalada, oo iyadoo wadooyinka sidaasi loo xirayo ay dhacayaan falal liddi ku ah dhanka ammaanka. qaar ka mid ah wadayaasha mootooyinka bajaajta iyo dadka gaadiidka yaryar wata ee isaga kala goosha wadada wadnaha iyo wadada Maka al-Mukarrama ayaa waxa ay sheegeen in si joogto ah wadada loo xiro, taasina ay keentay caqabado kala duwan oo xilliyada qaar habeenkii iyaga oo wadada wadnaha ku sugan la iska xiro wadooyinka, taasna ay keentay inay guryahooda ka dhaxaan ama gaadiidkooda ay ku xareeyaan meelo habeenkii aysan ku xareyn jirin, taasi oo ay ku sheegeen caqabad joogto ah oo ay la kulmaan dadka magaalada ku nool. waxay dowladda ka dalbadeen in maareyn wanaagsan loo sameeyo xirnaanshaha wadooyinka sida joogtada ah loo xiro. saraakiil ka tirsan hay-adaha ammaanka oo risaale ay la xiriirtay waxa ay ku sheegayaan xirnaanshaha wadooyinka magaalada inay tahay sababo ku aadan dhanka ammaanka. ciidamada wadooyinka xirayana amar lagu siiyo in ay wadada xiraan, taasina ay tahay qorshe amniga magaalada lagu xaqiijinayo.